ujeedka xafladan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay hay-adda Samadoon Foundation oo dhawaanaha lagu daahfuray magaalada Bristol ee wadanka Ingiriiska ayadoona tani ay tahay mid labaad ee loo qabto hay-adda Samadoon Foundation. xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Birmingham ayadoona ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda iyo waliba qaybo kale oo kaliya mid gobolada wadanka Ingiriiska. dadkii xafladda ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa wasiiradii hore ee waxbarashada iyo waliba caafimaadka Dr. Maryam Qaasim iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood cabiray muhiimadda ay leedahay sadaqada iyo waliba sidii loogu qayb qaadan lahaa dib u dhiska dalka iyo gargaaridda bulshada Soomaaliyeed ayagoona ugu baaqay hay-adda Samadoon Foundation in gacan weyn ka geysato arrintan. dadku hadday Ilaahay rumeeyaan oo alla ka baqaan oo dariiqada ku sugan cirka iyo dhulkan barakaad uga soo dejin lahayn baa liir doo badan faa'iido male Sheekh Shariif waani suubi waani tari taariikhda ku sheekayaas ma in doo ma dhamaadaan ilaa hadii barnaamijku hadu wadane inta oo jecel ma ku codsaday inuu garabka siiyaan mudane waxaan ku sheegaynaa inaan diyaar u nahay hadii aan nahay jaaliyadii Bristol hadii aan nahay dadweynihii Bristol waxaan leenahay hadda markii Sheekh Shariif isagoo madaxweynahan taageernay isagoo maxkamadii hogaamiyahan taageernay hadda isagoo wada maaragtay charity wado oo raba dadka dhibaataysan inuu caawiyo hadda inaan taageerinaan u maleeymaayo maaragtay cid ka soo horjeesanaysa inay jirto mid kastoo la doortaba anagoon diidma galinaynin isku duubni waa inaan xilka ugu ducaynaaye nin duntiisa wacan aad taqaan waad u dirirtaaye rabbigay midkii dulum wadiya daalinkaa qabaye dib u noqo dadkaagoo ku jecel dawgana ha seegin. maalintii aniga aan go to school aada dugsiyada hindisahaas maalintan ku dhawaaqnay dad badanaa nala yaabanaa oo u malaynaya inayna suurtagal ahayn suurtagal ay noqotay annaga waxaan rabnay ilaa 1 milyan laakiin wuxuu ahaa qorshe howleed ku baysgaraysan 4 sano 100,000 arday iskool waxbarasho la'aan ku celinay waxaan qornay ilaa 1500 macallin inaan waxaad arki kartaa wax hadii loo istaaga in la sameyn karo marka saas darteed waxaan soo jeedin lahaa hay'adaha khayriga ah oo shaqooyinka noocaana u istaagay in la garab qabto hay'adan Samadoon Foundation inay wax badan ka qabato annagana aan garab istaagna laano markaan annaga garab istaagno yaa waxay ka heli karaan taageero dad kale oo ajnabi ah ruuxii lahaa waxa horta waa inuu garab istaagaa. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa marka hore sharxay ujeedada loo aasaasay hay'adda Samadoon Foundation iyo waliba marxaladii ay soo martay. barnaamijkan Samadoon Foundation waxaan soo wadnay muddo wuxuu ka soo bilowday Mareykanka jaamacadda Boston markaan tagay dadkii mutacallimiinta meesha jooga markaan isranay waxa soo baxday in loo baahan yahay saddexdan area ee wax laga qabto waxa la isku dayay wax laga qoro inta wax la sameeynin dokumentiga la diyaariyay meelo badan la soo maray Uganda Imaaraadka laakiin fursad waxaan u helnay dadkeena oo soo bandhigna halka markaan nimaday waxaana dhiirigeliyay jaaliyadda balaaran ee UK joogta ee Soomaaliyeed ee aan aaminsan inay wax badan ka qaban karaan anuga mahad celinayno ilaa hadda intay soo qabteen maxaa yeelay fikradda inaan soo bandhigno laftigaan anaga wax weyn noo ah waxaan rabaa inaan idin sheego ujeedada foundationka iyo ujeedada xafladuba inay tahay in la baadi goobo nabadii lagu baadi goobo habkii dhaqanka iyo Soomaalinimada ay ku jirtay ee hore u jiri jiray sidaana badan waxaan ka fikirnaa siyaasad annaga ma soo gaarin waa ka fognahay annaga waxaan joognaa barnaamij ijtimaaci waxaan joognaa dhiigi daatay aan dhayno colaadii dhacday aan damino dhaawacii gaaray aan dhayno dadka dhibaataysan aan gargaarno dadka aan haysanin guryaha aan isku dayno inaan wax u helno dadka aan aqoonta haysan aan wax u sameeyno markaas kadib aan waxaan ka fikiri karnaa siyaasad ururkan ujeedadiisu ma aha gobollo mucayan inuu ka shaqeeyo ujeedadiisu waxa waa Soomaaliland inuu ka shaqeeyo nabaddu meel kasta inay gaarto waxbarashadu meel kasta inay gaarto caafimaadku meel kasta inuu gaaro istiraatiijiyadu waa taas ujeedada loo sameeynaayna waxa waaye haddii gobol dhibaato ay ka jirto kan kalena bari ay gaari kartaa waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatadii ka dhacday hotelka Makka al-Mukarrama dadka dhintay Allah u naxariisto safiirka runtii Yusuf Bari safiir ila soo shaqeey wahay aad active ah Ilaahay u naxariisto dadka kale oo dhintana Allah u naxariisto kuwa dhaawacan Allah caafiyo meeshaasna Allah noogu sina Ilaahay idinkiisa dhibkooda
si kastaba haatee xafladan ayaa ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan ayadoona ahayn xafladii ugu horeysay oo ururka ama hay'adda Samadoon oo ku dhigto wadankan Ingiriiska tani ayaa noqonaysa xafladii labaad oo loo qabato ururka ama hay'adda Samadoon ayadoona la filayo in bilaha soo socda la qaban doono xaflad noocan oo kala ah oo lagu taageerayo ururka ama hay'adda Samadoon Cabdirashiid Maxamed Cabdirashkiin Faisal TV Birmingham